dhammaantood waa la gubayey dhammaantood waa la tumayey ayaa islaaniisa soo taagtay ilmo yar sidataa taqaacus yara samayso dabkii iska yara giijisay ilaahay kii yaraaya ay sidatay buu ka hadlayay subxaana wa tacaala ee wuxuu yidhi yaa umma isbirii fa innaki cala alxaq hooyoy sabir buu yidhi xaq baad ku taagantay su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay mowqifka mu'minka amaama alimtixaanaat waa maxay mowqifka mu'minka amaama alimtixaanaat waa weedhatan ilaahay wiilka yar ka hadalsiiye ah yaa umma isbiri hooyoy sabir fa innaki cala alxaq muxuu leeyahay ku sabir dabka gal ha lagu gubo laakiin xaq baad haysataaye xaq iyuu kaa lumin maxaa dadka loo gubaa ama loo dhibaa ama waxaan loogu samaynayaa yani waxaa lagaa rabaa waxyaabaha qaarkoodu aydan inaad isticjaal samayso degdegto waxaan loo fadhiyay inaad samayso lagugu sii banaysto ama inaad tanaasusho oo wixii aad haysatay aad ka tagtid ama in lagu quusiyo qunuud kugu dhaco oo aad tidhaahdo waxba dee aakhiradeenna bal aan eegno wixii alla ka dhigato in lagu kala tegiy quusato is tidhaahdo filimkaanba kuma jirto wax la qabto hadhoo binaadam sameeyaa ma jiro wahaa hiya aafaati halaata fi ariiq ariiqa mabaadi'da iyo diimaha saddexda aafooda ku dhaca waa kuwa kan inuu qofku degdego oo waxaan loo fadhiyay inuu la yimaado iyo inuu maxay inuu tanaasulo oo uu habaat la iman waayo u sugnaan waayo iyo inuu quusto oo qunuud iyo ya'si ku dhaco camalkiisa islaamiga iyo diintii iyo wixii wadayba oo faraa ka qaado wiilkan yari hooyadii wuxuu ku leeyahay ilaahay ka dhawaajiyay dharabtaa lagu sidaa hooyoy isbirii fa innaki cala alxaq sabir xaq baad ku sugan tahay alla subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa oo in badan qur-aanku inooga warramayaa ambiye la ciqaabay oo la cadaabay oo dhib loo geystay oo nafta la isugu keenay ambiye la laayay buu qur-aanku sheegaya waa nebiyo maca dalik waa la laayay kuwaa la gubay baa qur-aanku tilmaamaya waxaasoo dhan isagoo ilaahay sheegaya ayaa alla subxaana wa tacaala haddana nebiga wuxuu ku leeyahay sabir bale isagoo sabrayay oo wixii oo dhibi ku dhacayeen baa ilaahay wuxuu leeyahay ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق الله سبحانه وتعالى مركي للربي النبي إن لا يدعى الصبر مركي هنا مسألة لا الله شرحي ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا واحد حصوصة با إلهي ضدك وشيكتا مركا كوا قالوا بي إلهي سبحانه وتعالى النار تنتو دولك أنا ورندونا ورتني حق مطي ويدك يدفير جري آخره ما جرتو ناري ما جرتو عدالة وحا ويدك هاي أليس هذا بالحق رب ما تهي إلهي وحلي ما لنت مرن ما جري انت والله كجا حق في سيام بيردنا قالوا بلى وربنا أذان كوكو دارنا الله والنار توارب إلهي وحلي مركزانا نوحنا ردنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون عذاب كالدمية وحاو قالوا بيدين دراديد بسبب كفركم دردمية عذابك محالو لي عذابك دردمية إلهي وحط المامية أصلا مال وحكو أرغوستين لي مال وددك كو حسابي أين يجرتو دنيا تنين يتهي دار ددك الله يتحامي الله يسكو يتحامي قفك مؤمن كايك قال كالله يسكو يتحامي لكن وحلا قربا ويا تصبرون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ما صبر يسمى لله سبحانه وتعالى مركي لقى ورمي آخرية قالوا حلقوا سميني آياتك حكتا إلهي مركا وحولي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم آيات دي هورا مركي إلهي نار تكور رمي إيو قال هذا صار الله قصوا بردك الدونة با إلهي وحادني النبي يقول فاصبر كما صبر أولو العزم صبر بقى اللي سبحانه وتعالى وواحد الصبر تاسيدي أولو العزم من الرسل أي الصبرين أولو العزم من الرسل قرآن كو حقا والرمي نبي نوح ودك تبلا غفر يستي ولا مقلي وايي oo haddana 9 boqol iyo 50 sanadood un dacwo wada
وإلهي إليه وما آمن معه إلا قليل هدنا هنجوجين بل أبا إلهي كور رمي النبي نوح وبكل الأساليب استعماله إني دعوت قومي ليلا ونهارا يسقوا سرا وجهرا وعلانية ليلا ونهارا marka xagga zamanka laga eego leyl iyo nahaar ba waan waday buu leeyahay marka xagga usluubka iyo weyga iyo dariiqada wax loo sheega laga eego sirran wa jahran wa alam baan waday buu leeyahay qofka bini aadamkii wuxuu adeegsan lahaa hadday time factor ka tahayna habeen iyo maalin shaqada waan waday buu leeyahay hadday tahay asaaliibta iyo dadka saa loola hadliyo saa wax loogu yeedhana kor iyo hoos iyo nooc kasto bashar wax loogu sheego waan waday baa ilaahay leeyahay دبتنا إلهي النبي محمد وحكوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أي اعمل شقي بالا لا يسيب أو شقيين صبر أبو الأنبياء بكمده وإنت هسو ميلوت كهجرو دي عراق كتقو فلسطين كتقو مكة كتقو ميل والبا دعوة ودي حد لسيو قارسين دبلو قردو انت الله سوق ابطال دبلو شدو الله حدو ان دبلو قردو وحاكم ده نبي الله موسى ووقتين سري قوم كيسي وحي كالا قبصدي نبي موسى وانا اسكر لسين او عيدا لسين او لعق لسين هدنا نكي دوني ده كبر بدنا با ليدي قبا ادو يسقو تقو حسو شيء الى وكا عبسنا يا ابو وسو عبسد وبشر waxa la yiri bal horta gacanta waxaad ku sii daawaa maxay wama tilka biyaminika ya Musa bal iska hubi la yiri gacanta kanaad ku haysataa waa maxay ilaahu waa u sheeydii buu yiri maxaad ku qabsataa wuxuu yiri xoolahan ku raacdaa waliya maarib kalena waanu leeyahay dana kale markii la hubiyay waxaan uu hayay wuxuu ahaa ayaa ilaahay iska sii daadaba dhulka ku tufo dhulka markay ku dhacday fayda hiya hayatun tas'a ba ilaahay dabeetana waxa la yiri khudha ولا تخف حتى أبيسد سور دي سدان كقبابا إلهي يدي وهنا عبصوني قول هنا يهيد مركي هروا وحلا يدهوبي وارك طور بالا يدوا اسكا طور مركو طورين إلهي وحو يدي قابو ولا تخف عبصا محل الربي نبي موسى عبصيدا بشر كبالا قصاريا مخلوقات نوكا عبصدا وايو حقي الله الدريا نن أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري nin sidaa laba ilaahay u diraya muxuu haystaa Muuse ciidigu darbuura walaalkaana ka xaysaa leeyay waa laba nin waan ciidan wadan xoolo wadan askar wadan waxba haysanin ninka loo tagayana waa nin kibray oo qooqay oo caynkana ilaahay wuxuu ku yiri subhanahu wa ta'ala zaad maxaa looga dhigay wala taniya fi dhikri ba ilaahay aniga xuskayguuna ka daalina wax kale uma baahnid aniga kownkan iska leh aniga xuskayguuna ka daalina ولذلك بإلهي حسكي سكمود دالنا مركا كو أتكاتي وحولها كلا إن معي ربي سيهدين إلهي بانيقا معي قوي حنونيني إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد وحكولي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل سيدي أولو العزم الرسل شو أصبرين أصبر ولا تستعجل لهم بإلهي قولنا وحبا عذاب كوده هدك سن با إلهي عذابك غورتان كين هي انو غورتان ارغوسن waxa waa shaqadayda ba Ilaahay waxba adigu ku degdegin wala tasta'jil lahum adiga waxa laga yaabaa inaad adigu islaaday muuminkii xagga lagu rifo xagga lagu ma kuwan dhulka la gooy Ilaahay taa aniga shaqadayda tahay ba Ilaahay wala tasta'jil lahum ha ku degdegina ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala لكن إلهي محولي ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ما لنتا يا أركي دونان با إلهي وحي آن أيبوهي دوني دا تنترد بدنايد با وحي لن نقون دون تابا إناني ساعة مالن كم بدا إناني سوچوغين وحبها لدك دقين با إلهي ما لنتا ينقوطا إنا وحي قابو وحي نقون إسابا إلهي لي لم يلبثوا إلا ساعة من نهار دبتنا إلهي وحليي بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أي هذا بلاغ للناس وقارسين با إلهي إلهي سبحانه وتعالى تاس وحال سبحانه وتعالى إن بريا مركا كان صبر كقفك مسلم كاوحا هورتي ستاغني إنو يهي إنو صبره امتحان كإنو كو صبره أو صبره لكن صبر كمعنيه سمحوي هي كو إنا ندقدقين مراهن هاد قوسن كرين إنا تكو دقدقين استعجال إنا سمينين
khuliqa alinsanu min cajal insaanku marka hore wa kana alinsanu cajuula abuur ahaan buu mid degdegta jecel yahay bal tuxibuuna alcaajila ilahay wuxuu tilmaamayaa insaanku inuu degdegta sidiisaba iska jecel yahay waxa degdegtaana uu jecel yahay laakiin ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala degdegtiina alla lama degdego ilahay arrimiisu maqaadiir bay ku socdaan walidaalika adigu ha degdegin baa la leeyahy sidaa awgeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiiskii saxiixa ku yaalay bukhaari uu soo saaray khabaab ibnu larat waa saxaabi qabiilkii reer banu tamiima ninka kan waa dadkii la qabsaday ee dabeetana la addoonsaday nin carbeed oo reer banu tamiima buu ahaa laakiin gacan colaadihii inta la qabtay la addoonsaday islaan la odhan jiray umu anmaar ayaa akhiiran laga iibiyey islaantiina farsamada tumaalnimada la yidhaahdo bay bartay dabeetana way ku xoogsatay markaa meel baa loo furay dukaan tumaaleed oo farsamo yaqaana fortune-kaasuu haystay markaas iyo wixii ka soo galana qoladan baa dee qaadan jirtay wuxuu ka mid ahaa muslimiintii hore ee islaamtay